laba kun sideed iyo toban markii ugu horeysay taariikhda Soomaaliya waxay gaartay final macallimiintii guushaas keenay iminka qayb kama ah mashruuca qaranka oo sida la socoto shaqada waa laga joojiyay marka hadii arimaan ay sii wadaan xiriirka maxaa ka dhalan kara horta guushii ugu fiicneed ahayd pointigaas waa ku maasata qaliil inay xusuuso 2018 ciyaari 17 and 17 ayna jeclahay 17 jirada صح واي واحد أجنبي كمجرين توبرياشي معلمين Soomaaliya wada ahaayeen fariiro uu ku jiro nin aad khabiir u ahaa dadkaasi oo kale in la dhiirigeliyo u baahan yihiin qaliil marka runta laga hadlo uma baahna in la sii kala furfuro oo la sii kala diro aniga waxa aaminsanahay in macallin ajnabi ah hadda ciyaaryahan Soomaali ah oo xamar ama ku dhashay ku koray waliis meel ka aadin qaabka uu tababar u siin karo way adag tahay oo haddana mu muuqato xataa malihin khibradeeda xataa malihin haddii aan barneena horyaalkeena in ajaanib ay ka ciyaaraan macna ajnabi ma haddaan barneena dhalinyaradi haddii jirle language barrier haddii jirle wixii wax ku cusub waaye in dhaqankii wixii Soomaali si badan la soo hayo u baahan tahay dhalinyaradu waa taqaanaa waliba football ku ciyaara marka waxyaabahaas oo dhan macallimiinta Soomaalida wax kaga fiican ma leh haddii la dhihi lahaa macallimiin Soomaali oo tayo leh ma joogaan wadanka way joogaan waa la arkay horyaalka waxyaabaha ka sameynayaan macallimiinta da'da yar iyo kuwii horeba dadkaasi in la isku aruuriyo dadka dibadaha jiro oo ciyaartoydii hore laftirkooda talooyin laga siiyaa national team wax badan ka caawin lahayd ma garan karaan in sababta hadda aan ajnabi mushaar badan lagu siiyo oo xulka qaranka wax ay soo kordhiyeen aan la arkay haddii la arki lahaa xataa wax fiican ay wadaan oo guul ay keeneen dhihi lahaa ciyaartii hadda Zimbabwe dadka badankood macallinka la eedeynay bedeladii uu sameeyay go'aanadii uu qaatay markay ciyaarta 1-1 ahayd waxyaabahaas oo dhan soo haddii la dhihi lahaa macallinka wax fiican lagu soo kordhiyay oo ciyaartoyda ammaanayaan oo dadkii ay la dhacsan yihiin gareem markaas fursado kala bahan la siiyo macallimiin ajnabi laakiin ilaa hadda ma muuqato 10 sano ugu dambeysay macallimiin ajnabi waa la magacaabay laakiin wali wax ay soo kordhiyeen lama hayo